dhammaantiin waxaan ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anoo ku hadlaya magaca guddida wadada Hargeysa Beelguudle waxaan maanta isugu nimid halkan maanta oo bishu ay tahay 18 Disembar 2018 in aan maanta dhagax dhigno oo la bilaabo alignmentkii iyo toosintii wadada inta hadhay intii hore soo dhisantay mooyaan inta baaqiga hadhay oo ka bilaabmaysa Habaasweyn ilaa la gaarayo Beelguudle laga gaarayo hawsha iyada ah oo ay iska kaashanayaan guddida wadada gacanta ku haysa mas'uuliyiinta gobolka iyo degmadaba iyo hay'adda RDA u qaabilsan jidadka iyo wadooyinka Somaliland oo injineeradeed maanta ay la joogaan marka waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadnaqaynaa Ilaahay kadibna aan u mahadnaqaynaa cidda hawsha inala galaysa oo ugu horeyso hay'adda RDA oo ka wakiila xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland oo leenahay way ku mahadsan yihiin hawlaha ay nala qabanayaan iyadoo horena ay wadada nagala soo shaqeeyeen oo xukuumaddu wax badan ay ka soo tartay inta hadhayna inay markaasi ay hawsha nala galaan iyadoo maanta ay guddidu diyaar u tahay iyo maamulka gobolka iyo degmooyinka iyagoo iskaashanaya in hawsha ay sii dhameystiraan barbilowna maanta ay u noqoto alignmentka iyo surveyga iyo toosinta wadada hawsha maanta aanu bilaabaynaa aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo hawsha ka qayb qaadatay waana dhammaan salaamantihiin wajazaa على سيدنا مولانا محمد ورصابك قبل كبلغودله ميركا غديدا ودوينكا iyo meerka gumbraaba السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ee sheekh naasi baa dhameeyay eemkan maanta uu nimo alignmentkaas waxaan ma ku yara darayaa wadadaas meeshay marayso ee inamada injineerku ilaahan halkaas ay maraysaa hadii guri ka dhisay waanu duminayna nin walba ugu halkay wadadaas marayso oo baa laga qaaday iyo waa lagu soo dhawaaday iyo barkada iyo dhulkayga waa la maray in ka qaadan meeyno halkaas la maraya way soo arkeen wadada qaar ku dhawaado aan soo dhaafnay caaq baa loo soo diraya meerka Beelguudle insha Allah marka caaqftii noo soo diran aan ka sameynayno meey allaale meeshii inama suurahan waa la marinaya ayuu la marinaya marka waxaan leeyahay intaas baan ku kordhinaya gudoomiyaasha iyo waa wada salaamantii horani salaam taariikh waxaynu halkan u taaganay maanta tuuladan Habaasweyn inaynu wadadii bilaamisay ilaa Habaasweyn ilaa Beelguudle aynu diyaar u noqono inaynu bilowno waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa guddida wadooyinka ee deegaanka oo in badan ku hawshaneed sidii jidkan meel kastana u maray sidii jidkan u bilaami lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mar labaad waxaanu u mahadnaqaynaa hay'adda dawladda ee jidadka RDA oo iyaduna hawshan nagala qayb qaadan karto qaybteeda ka geysanaysa waxa kale oo aanu dadweynaha ku baraarujinaynaa kuwa deegaankan u dhashay amba Beelguudle ha joogan amba Gumbura ha joogan amba dibadda ha joogan wadadii maanta waa taas oo la dhagax dhigayaa cid waxa weeyaan cid kastaba inay ka qayb qaadato oo tuulo walba waa la soo marayaa degmo kasta waa la soo marayaa waana soo maraynaa marka cid kastaba inay wadadii hawsheeda ay ka qayb qaadato ayaanu iyaguna ku guwaabinayna ka kacay baanu leenahay wadadii aynu bilaabano aynu hawsha wada qabsano wada jir bayna u baahannahay xukuumaduna hawsheedii way nagala qayb qaadanaysaa السلام عليكم ورحمة الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد هذه بنجم معنا غيرتها جديدة وضوء يا وضياش ملاحظة تجمدة يقول كسوق الجلي فريتانكا وضوء هباسوين أنا بحضر من هاي ديجانكا هباسوين هذه بنسولويننا ويحكران كذا أنا ونقطرنا ماشي أي مرتة ما بيرهاته ما meel kala haato wadadu ay ku toosnaato cid soo taagi kartaa ma jirto aad baan idinku soo dhaweynaa adduun iyo arrin iyo wixii looga baahdana diyaar baan leenahay waxaan leenahay wadada laga bilaabo si wanaagsan loo wado halkii ay martaa hal mariyo ku aboontay guddida iyo odayaasha iyo madaxda gobolka ee meesha ka soo qayb gashay waxaan ku gubaabinayaa inay wadada si hawl kara ay uga shaqeeyaan anaguna waan la garab joognaa ma aha wadadani markii u horeysay ee halkan ma hawsheeda la isugu yimaado way socotay hore loo soo ambaqaaday imika waxay ku jirtaa ambaqaadkii saddexaad bay ku jirtaa imika waana tuuladii Habaasweyn ayay taagantay maanta
hawd bay uga sii socotaa halkan waxaan ku cadaynaynaa dhammaan deegaanka gobolka hawd inuu diyaar u yahay wadadii mas'uuliyiin xildhibaano odayaal tuulayaashii reer miyigii in dhammaan diyaar loo yahay sidii wadadii horumarkeeda maxaan ku dhahdaa loo sameyn lahaa waxaana farayaan midiya u marinayaa in la iska xil saaro mid in ariya wata iyo mid in geela wata iyo mid in beera wataba wadadaas sidii loo dhowri lahaa aleemadka imika inamadii baa bilaabaya waxa la rinjeenaya ilaa gumburaha la rinjeenaya dhulkiyo la saaraya bahashii cidda ka hor timaada dee waa cid horumarkii ka hor timi muhiimaddu aan maanta meesha loo yimi waxa weeyaan in wadadii aleemankeedii intii fayskii ugu horreeyay la bilaabo oo ay saa ku socoto fayskaasoo 15 kilomitir ay hay'adda wadooyinku ballan qaadeen oo ugu hogaaminayaan madaxda hay'adda wadooyinka iyo wasaaradda gaadiidka wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo maareeyaha oo halkan mar hore aynu nimiyo ka ballan qaaday inuu 15 kilomitir la fuliyo aad iyo aad buu ugu amaanayn madaxda ay qusayso ee hay'adda haday tahay wasaaradda tahayba annaguna hawshaas sidiina noogu soo igmaday ee ugu wanaagsan ayuun baan u fulin doonaa insha Allah taala dadkana waxa loo sheegayaa saayid madaxdu kula dardaarantay sida la yeelay ee la go'aamiyay inay qaataan oo wadadani horumar iyo development bay wadaaye ay saa ula socdaan ula jaan qaadanaya muhiima mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa gudida oo wada shaqayn wanaagsan naga dhaxayso iyo community-gan ka sugaynaa iyaguna inay si wanaagsan noola shaqeyn insha Allah maayrada xildhibaanada injineerada ka socota hay'adda RD wadooyinka dadweynaha ku dhaqan habaasweyn waxaan isku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxa noo farxada inaynu bilaabayno wadadii isku xidhisay Beligweedle iyo Hargeysa intii hartay aleemadkii inay dhigaan injineeradu taasoo loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado annagu haddaan maamulahan degmahan haddaan iska hadalno bariyaha hawl baan ka waday Beligweedle waa ogeeyay marmalaya in magaalada ka soo ilaa banka ayaanu wadnay laakiin markii aan aniga gudidii aan loo tashanay waxay noqotay inaanu ka qaadno halkan ay baash marisay wadada oo ay soo socoto marka waxa loo baahan yahay dadweynaha gobolka Hawd ku dhaqan waxaan leeyahay nin kasta oo amba xoolale amba lacag haysto contribution waa laga doonayaa lacag la'aan ku socon mayso dawladda dhexe lafteeda waxaan uga baahanahay ballanqaadkii ay noo qaaday ayaanu ka codsanaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi inuu isna dhinaciisa nagala qayb qaato waxa kale oo imkaan anigu halkan ku wareejin doona qadar yar lacag ah oo aan ugu tala galnay horta in lagu sii shaqaalaha iyo waxaan ku wareejin doona gudida wadada Beligweedle Hargeysa isku xidha oo ah lacag $100 waxaan xoojin lahaa uun fikirkii odayaashu ay ka dhawaajiyeen oo ah in wadadaas laga wada qayb qaato bidnillaahi tacaala oo kow aynu ka qayb qaadanno dadkeena deegaanka ah deegaan walba markuu marayo xooggiisa iyo xoolahoodaba inay ku darsadaan bidnillaahi tacaala farqudhi fool ma dhaqdo haddaynaan wada qaban wadada maanta inoo bilaabmaysa inteedii dambe waxba inoo qabsoomi maayaan ilaahay idinkiisa way dhammaan doontaa marka wacyigelinta guud odayaasha waan la wadaagaa waxa kale oo fariin u dirayaa cid kaste oo khayr doonaysa ma oranayo cid kaste oo ma garanaysa danaynaysa kaliya cid kaste oo khayr doonaysa oo guud iyo dibadba joogta inay ka qayb qaataan wadadaas waa sadaqa jaariya waa mid Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ugu darayo si gaar ah dadyowgii khayrka sii jeclaa qurba joogga ahaa qolqol joogga ahaa waxaan fariin u dirayaa in maanta aynu diyaar wada nahay inaynu ka qayb qaadanno wadadaas waa mashruuca ugu ballaaran waa mashruuca ugu muhiimsan waa mashruuca ugu weyn ee laga qabanayo gobolka Hawd sidaan aaminsanahay idinkuna aad ila aaminsantiin marka biidnillaahi tacaala walaalayaal waxaan leeyahay maanta u soo degdega jeebka gacanta geliya nin walowba xoogaaga iyo xoolahaaga iyo fikirkaagaba ku soo darso biidnillaahi tacaala ururada bulshada haddii aanu ka soconno hay'adaha haddii aanu ka soconno allahumma salli ala maxamed deegaanka oo dhan waxaynu diyaar u nahay inaynu ka qayb qaadanno hawsha soo sidaa maaha waxaan si weyn ugu mahadnaqayaa gudida wadadan ka shaqaynaysa ee hawsha gacanta ku haysa xaqiiqatan
gobollada dalka dhowr gobol baan soo maro guddi noocan kama jirto marka dadka waxaan leeyahay shucuubta gobolka hawd ku dhaqan war guddidu gacan qur wax ma dhaqde guddida halala shaqeeyo waxaan kale u mahadnaqayaa hay'adda ADA oo iyaduna si hagar la'aan inoogu hawl baxday in marka hore wadada la helo sarfeeyirkeedii la helo alignmentka loo sameeyo wadada oo injineeradii saaka arkaysaan ama marxaati ka tihiin ay u soo dirtay waxaan kale u mahadnaqayaa wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka wasiirka Cabdilaahi Abukar oo isna si xilkasnimo ah inuu la shaqeeyay isagoo madaxweynaha qaranka metelaya markuu wasiirku cid diray madaxweynaha qaranku metelaya marka madaxweynaha qarankuna uu ku jiraa in saaka loo sameeyo wadada Balugubadle alignmentkeeda la sameeyo dhammaan dawladda ka go'an tahay marka waxaan baaq u dirayaa oo aan naftayda ka bilaabaya war mar hadii ay dawladda inoo hagar baxayso oo saaka injineerintii la inoo diray oo guddidiina ay goob joog tahay oo guddidiina inoo shaqaynayso aynu gacmaha isqabsanno reer Habaasweyn saaka gurigiina laga bilaabaya nin walba waxaad ku tabarucdaa neefkaaga ariga ah awrkaaga ka wax kala waayo in dhir baa la jarayaa xoogaaga ku tabaruc dhammaan dadka u dhashay Balugubadlena ee hawd gobolka hawd ka soo jeedana waxaan leeyahay war wadadii way inoo bilaabmaysaa dawladdiina waa u diyaare tabarucaadkiina iyo xooggiina iyo xoolihiina diyaarsada waxaan mar labaad u mahadnaqayaa guddida wadada oo ah culimo iyo xildhibaano xilkasa oo hawshii sidii loogu ogmaday ee lilaahinimo daacada u wada iyadaan cidina waxba ku siinahayn cid wax ku siinaysa ma ogtihiin iyadaan cidina aan waxba ku siinay si daacadnimada u wada aad baa u mahadsantihiin waxaan kale u mahadnaqayaa odayaasha iyo indheer garadka degmada Habaasweyn ee saaka sida sharafta leh ee milgaha leh nagala soo qayb galay dhaqaajinta wadada aad baa u mahadnaqatiin waxaan kale u mahadnaqayaa injineerinta iyo bahda saxaafadda ee nala joogtaba aad baan ugu mahadnaqayaa wabillahi tawfiiq.